السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا صاحبيال ku soo dhawaada maalin kale iyo muuqaal cusub iyo wada cusub oo magaalada Hargeysa meel muhiim ah uga baxday. Wadadan inaan idin sharaxo mooyaane wax laga yaabo imika marka aan muuqaalka furay in aydan garanay. Wadadani horta magaalada Hargeysa waxaynu ka joognaa dhinaca koonfur galbeed. Waa xaafad cusub oo miyu eg laakiin magaaladii ay sanka u soo hayso imika guriga laga dhisayo. wadaduna buurta ay ka baxday ana idin sharaxi doonaa in Mariya xaafada yar horta magaceeda waxa ku qoran board yar arkayay oo aan marayn dhawaan loo bixiyay magaalo Jihaad xaafad Jihaad in lagu qoraheed amba reergiisa qolka xaafad magac u bixinayaan magaalo Hiblaayo u bixiyaan laakiin waxa sax ah xaafad Hiblaayo ila magaaladii waatan ku dhex yaalaan xaafada imika taa laga dhisayo guryaha qurqurux badan dhinac waa kemi oo xagan geeli ba ku xareysan taa boardka xaafada yar magaceed xagan geel ba ku xareysan wadadina way maraysaa. Wadadani horta waxay ku dhici doontaa oo inu imika xageeda u soconaa wadada xaraf ay ka baydhaysaa hawd iyo baydhaysaa waa Hargeysa ilaa hawd. Wadadani waxay ku beegan tahay kantaroolka Garabis ee dhinaca koonfur galbeed ee magaalada Hargeysa amba kantaroolka degmada Faraweyne iyo degmada Hargeysa kala qaybiya. Marka wadadani waxay mustaqbalka isku beegan yihiin oo ay tagaysaa degmadii Balcabane iyadoo deegaan badan sii maraysa sida degmadii Sayla iyo tuulooyin Garabis dacwali saasoo sii maraysa wadadani. Marka waxaan filayaa in aad fahantay waxay dhinaca galbeed ka maraysaa xaafada Sheekh Umar ayay xagga galbeed ka maraysaa waxooga ay u muuqataa. marka inagu imika halka sare ayaynu ka soo bilownay qayb wadadu ay dhisan tahay oo halkeeda la dhigay ayaa imika inoo soo muuqata. halka waxa ka bilaamaya in daamurkii la dhigay oo wadadan horta mabaan ogeynba in daamur la dhigay waliba waxaan moodayaa carratuul yar inta la macmalay in aan wada imikana iska si waxooga yaalay laakiin wadadan shaqo fiican ayaa laga qabtay ilaa 1 kiiloomitir in ka badanna waxa la dhigay daamur qarale oo qurux badan inta kalena carratuul wanaagsan oo la garaacay ayaa yaala ilaa kantarool Garabis ayuu ku dhow yahay inkastoo buurta aan ka bixin laakiin buurtii aan ka soo noqonay wixii ka sokeeya waa 5 intana waxa saaran daamur aad u qurux badan. marka waa wada aad u muhiim ah degmooyinka aynu sheegnay ay tagaysaa waa Hargeysa ilaa hawd. marka wadadani walibana de waxaan filayaa dadka deegaanka ka soo jeeda tahay wadadan haddaad ka qayb qaadato waxa kugu jira ajar fiican haddii aad la soo xiriiro gudiye kulay leedahay wadadan macnaha gudiyay leedahay qolka gudiyada hadda la soo xiriiro oo wadadan wax ku darsato aad ay u muhiim tahay. dhulkaasi imika wala wada degi doona wadadu waxay wadataa magaalo wadada imika marka la dhiso wada arki doontaa insha Allah ninkii gaadha hadii Allah wada la aqbalo waxa arki doontaa wadadaas oo la wada degay oo dhinac walba laga degay oo sidii imika xaafadii aynu arkaynaba magaaladii soo degtay. halka waxa ka soo muuqata magaaladii Hargeysa oo wadadu meel banaan ay ka soo gashay. wadadu waxa ku dhicin doontaa sida idin sheegay wadada xaraf iyo Hargeysa isku xidha ee laamida imika iyaduna imika iska googada ayaan arki doonaa. marka wali wadadii baan soconaa waa wada qarale oo aad u qurux badan oo carratuul aad u wanaagsan la dhigay ayaa halkan ku taala waana wada aad u muhiim ah xagga sare ee wax laga soo wadaa iyadana Balcabane iyo inta Saylo u dhaxaysa waa laga soo wadaa wadada oo waxay maraysaa iyadana meel wanaagsan laakiin daamurkii lama saarin xagga ilaa 12 kiiloomitir oo Saylo iyo Balcabane u dhaxeeya ayaa la dhigay iyadana daamurka aan idhaahdo ayaa la dhigay carratuul iyo biyo mareenadii loo sameeyo aad loo qurxiyay. marka wadadana meel macaan ayay iyaduna maraysaa waxaan leeyahay insha Allah waxaan rajeynayaa in aan macnaha la joojin dadaalka oo la wado in dadka shacabka iyo dawladdu iskaashanaya wadooyin badan oo imika magaalada Korneesho uga baxay gacanta ku hayaan dhinaca waqooyi ilaa 3 wadooyin oo ayaa gacanta lagu hayaa halkan dhinaca hawdka ilaa iyadana 3 wado ayaa lagu hayaa. markan gaadhiin ku deynay aynu ka degnay diin yar oo diinka soo magaranaysan ayaa wadada halka dhaxmarayay. marka insha Allah diinkii yaraan ku noqonaya sida aan wadada uga talaabiyo maadaama uu aad u yar yahay baawurtuna in arkayn oo baawurta halka ay ka soo cartay imika gaadhi baa ag maray. marka diinkii yaraan insha Allah bal tagaya wadadana waa tan oo idin muuqataa
diinka yar baan doonaya wadada ka qaado insha allah halkaasuu yaalaa diinka yari marka diinka yar baan iminka wadada ka qaadaya insha allah diinkii yaraa xogaa baan soo dhaafay markaa waan ku noqonayaa diinka yar xogaa baan ila soo dhaafayba kol gaari aad socdo waxaad moodaysaa in yar soo dhaaftay markaa lugta kugu fogaanaya marka inta aan diinka yar gaadhayana dee wadada iska sii daawada wadadu u duceeya macnaha inaad fahanteen ma filaya wadadu halka Hargeysa uga baxday degmada ay ku taalaana waxaan filayaa iminka meelaha ay gacmo dheeriyo 31 May ku kala qaybsamaan inay tahay baan filaya mid iminka wadadu maadaama ay meel bannaan ma taho magaaladiiba ay bannaanka maraso halka ma kala sixi karo laakiin waa labada degmo mid ahaan diinkii yaraa waa kan cagahaaga iyo kurkaaga iska laabaan ku idhi marka insha allah anaan ku qaadaya wadan ka buuxsan kari waaye marka diinka yar wadadaynu ka tallaabinana insha allah dhulkiisa ha u foofo dhulka roob yar baa ka daawo cagaar inkastoo kamarada ku qaban halkii hore ka soo bilownay cagaar yar fiican baa ku yaalay marka meelahaas iska daaqaya sida xooluhu daaqaabaan filaya xawayaanka daaqo ka mid yahay malaha xawayaan qaar waa hilib cun qaarna waa sida xawayaanka ayay sida xoolaha ay qaarna daaqan qaarna hilib iyo waxba cunaan kolka diinku waa kuwa daaqayaan filaya waba la qashaade diinku waa xalaal waa la qashaaba meel qaarkood marka wadadu halkaas ay imika ka dhacday inaguna imika waxaynu ku soo dhownahay halkii wadadu ay kaga beerisay wadada xaraf wadadu waxay ku soo beegan tahay macnaha halka madaxtooyada cusub iyo halkaas ay dooxa afka kaga soo haysa wadada xaraf ay markaa ku dhacaysa wadadii xarafna waatan wadadii xaraf oo kullaama yaro fiican laga dhigay oo booyadaha iyo xaasina ay aad u maraan kuna reeyeen laakiin imika iyaduna meesha ka baxdo way baabaaday marka dadkan beeraleyda iyo halkan beerahan de kulahe doonaya in la dego ee ay iibsadaan laga iibsado waxa wanaagsan in wadadan maal geliyaan oo ay habeeyaan wada quruxdan ka dhigaan si loo soo dego inkastoo magaalada imka halkan ay ka soo talowday 100 jiro oo ay wax yar soo jira wadadii waa ka imka wadadii yar xaraf tagaysay way inteeda badan laamidi way baabaaday wada iska caadi noqotay in yaroo meel halka yar hore laamidi ku joogtaa laakiin maadaama dhul jilicsan ahayd halka wadadu maraysay aadna aan berigii hore loo dheerayn warshadan intii la sameeyay ka hor iskuulka yar waxa la yiraahdaa 100 jire waa xaafada 100 jire ayuu ku yaalaa waliba xaggeeda xaraf dhow 100 jire la yiraahdaa iskuulka laftiisu oo iskuul yaro in badan buu imaka ahaa marka dhamaantiin waan salaamaya maalin wanaagsan